iyo 40 aayadood waxyaabaha ahaantii u fiirsada macnaha suuradahan mukadibiinta ahaa bismi illaahi raxmaan ilaahay u dhaaranaya ilaah wuxuu ku dhaartay walaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد مركز كسو دوادا درسجين كصاب سنة تفسير كقرآن الكريم كارهان جزء ما وحين كسو دحترنا والعليال سورة وحين بلامنا النازعات إن شاء الله تعالى سورة وحين كقوبنتهاي لحيا فرطان عيضات waxyaabaha ka hadli doontana waxaa ka mid ah qiyaamaha iyo sida uu u dhibaato badan yahay waxaana ka mid tahay suuradihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu lahaa shayabatini huudun wa akhwaatuha ayay ka mid tahay uu lahaa rasuulka cira iga soo saareen markaan sidaan ugu fikirayay macnaa waxyaabay ka sheekeynayaan iyo qiyaamaha iyo axwaashiisa markaa qofka run ahaantii u fiirsada macnaha suuradahan aada iyo aada ayuu u dareemayaa murugo maalintaas siduu ilaahay uga warrami doono iyo xaaladda ay ku sugnaan doonaan kaafiriintii mukadibiinta ahaa bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay wuxuu uhi wannaasicaati qarqaa marka wowgan waa wowl qasam waa dhaar ilaahay u dhaaranaya ilahay wuxuu ku dhaartay walaalayaal 5 arrimood ayuu ku dhaartay والنازعات غرقا waxaan ku dhaartay buu ilaahay malaa'igta ka siibta ruuxda gaalada ka siibaysa markay waqtigoodu yimaado ajashoodu dhamaato ruuxda ka siibaysa qarqan siibitaan adag sidii inay ruuxdoodu hafanayso kale biyo ay ku hafanayaan ay ruuxda si adag uga siibaysa malaa'igtaasaan ku dhaartay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofka kaafirka ee gaalka marka ruuxda laga siibayo si adag oo naxariis darro ah ayay malaa'igtu ruuxda uga siibtaa jirkiisa markaa wuxuu moodayaaba qofku sidii ruuxdiisu sidii inay qarqamayso oo biyo ku hafanayso kale qarqan ayaa nafta looga siibaya markaasaa waxaa la tusayaa weliba oo daaqad laga tusayaa naartii iyo boosku ku lahaa iyo cadaabkiisii ayaa laga tusaya markaa argagax iyo cabaad ayaa maaragtay iyo sakaraad ayaa naftu kaga baxaysa ilaahay wuxuu yidhi wannaashitaati waxaan ku dhaartay malaa'igta ka qaada nafta muuminiinta nashtan si naxariis leh si yaroo dhibirsan nafta uga siibta malaa'igtaasaan ku dhaartay qofka muuminkaana marka ruuxda isaga laga qaadayana si naxariis leh ayay malaa'igtu uga qaadaa jannadiisii iyo boosku ku lahaa ayaa daaqad laga tusaa wixii ilaahay ugu diyaariyey booskiisa iyo jannadiisa ayaa la tusaa farxad iyo dhool cadeen iyo naxariis ayaa ruuxda si yaroo dhibirsan ayaa looga qaadaa buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala marka malaa'igtaa ruuxda ka qaaday ka siibta muuminiinta ayaan ku dhaartay buu ilaahay yidhi sida yare dabacsan ruuxda uga qaada wasaabixaati sabxan waxaan ku dhaartay buu ilaahay yidhi malaa'igta samada dhex dabaalata ee waxyiga soo dejiya ee kolba dhinac u socda ee ka shaqeeya amarka ilaahay kuwaasaan ku dhaartay buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala culimmada qaarna asaabixaat waxay ku fasireen xidigaha wareegaya ee kolba god ka guuraya god kale u guuraya ee dhex dabaalanaya fadaaga weyn ee ilaahay subxaana wa tacaala ku dhex abuuray فالسابقات waxaan ku dhaartay buu ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta u dheeraysa wanaagga iyo khayrka sabqan baratan u kala barantata wanaagga iyo daacada ilaahay ama u kala barantama oo dheereeya amarka ilaahay subxaana wa tacaala inay fuliyaan ama waxyiga ay soo qaadaan oo rususha kusoo dejiyaan ama khayrka uga dheereeyaan addoomaha ilaahay khayrka uga dheereeyaan ama ay khayrka uga dheereeyaan iyo wanaagga iyo waxyiga shaydaanka iyo ibliiska intaasoo dhanba waa lagu fasiray ilaahay wuxu uhi subxaana wa tacaala falmudabbiraati amraa waxaan ku dhaartay malaa'igta amarka ilaahay maamula ee ilaahay u xil saartay amarkiisa arrimaha axwaalul ard min matarin wa qaxdin sida roobka iyo biyaha iyo waxyaabaha xanuunka caafimaadka soo dejiya
oo ilaahay u tala saartay subxaana wa tacaala. falmudabbiraati markaa aayadan shanaad falmudabbiraati amran iyada way isku waafaqsan yihiin culummadu inay malaa'igta yihiin, laakiin afarta kale waa la isku khilaafay. laga soo bilaabo wannaasicaati qarqan wannaashitaati nashtan wasaabixaati sabxan fasaabiqaati sabqa. culummada badankood waxay ku fasireen cabdillahi bin cabaas iyo cali bin abi taalib radiallahu tacaala canhum malaa'igta ayay ku fasireen. culummo kalena waxay ku fasireen xidigaha iyo meerayaasha ayay ku fasireen. laakiin falmudabbiraati malaa'igta kala daberaya amarka ilaahay amran amarka ilaahay soo siiyey kala daberaya. haddii roob lasoo dejinayo biidn illah idanka ilaahay bay kusoo dejinayaan. waxyaabahaas oo dhan malaa'igta u xidh saaran ayaan ku dhaartay buu ilaahay. dhaartaa wuu ilaahay walaalayaal malaa'igtiisa iyo makhluuqiisa kusoo dhaartay oo isaga ay u bannaan tahay inuu makhluuqiisa ku dhaartay, laakiin innaga ay xaaraan naga tahay inaynu ku dhaaranno makhluuq, oo ilaahay un ay tahay inaynu ku dhaaranno subxaana wa tacaala. sababuhu ilaahay ugu dhaaranaya malaa'igta ama xidigahana waxay tahay wuxuu ilaahayna tusinayaa awoodda ay leeyihiin. awooddaana ilaahay baa siiye waxay ku tusinayaan inuu ilaahay jiro subxaana wa tacaala. awoodda ay leeyihiin waxay ku tusinaysaa calaa wujuudi illah, jiritaanka ilaahay. waxyaabaha daba dhaartu ilaahay usoo dhaarto waa maxay? ilaahay wuxuu usoo dhaaranayaa in laydi soo saari doono maalinta yowm alqiyaama, oo qofka nafta lagu soo celin doono, ruuxdiisii lagu soo celin doono, jirkiisii lasoo nooleyn doono. ujeedada dhaartu waa taa iyo jawaabteedu. ilaahay wuxuu hi yowma tarjufu raajifa. nabi maxamed waxaad xustaa maalinta ay gariiri doonto dhulka uu gariiri doono. yowma tarjufu maalinta uu gariiri doono alardu alraajifata gariir culus uu ku dhici doono. tatbacuhaa waxaa ka daba iman doonta buu ilaahay yihi subxaana wa tacaala alraadifa tii gariirkii baabiin lahaa dhulka oo dhan, toddobada dhulba. culamada qaar baa saa ku fasiray. culamada qaarna waxay idhahdeen yowma tarjufu raajifa waa afuufitaanka hore, suurta hore marka la afuufo oo dhulka iyo waxa iyo kawaakibta oo dhan, meerayaasha oo dhan, samada, dadka nool wuxuba ay dhiman doonaan suurta hore. tatbacuhaa waxaa raaci doonta buu ilaahay oo ku xigta alraadifa suurta labaad oo lagu soo noolaan doono, oo dadku soo bixi doonaan, qubuuraan kasoo bixi doonaan, ilaahay soo nooleyn doono subxaana wa tacaala. ilahay wuxuu hi maalintaa yowma alqiyaamaha quluubun dad badan quluubtoodii yooma idin maalintaa waajifa way argagax badanta, way argagaxsan yihiin. waana quluubta dadka kaafiriinta gaalada. absaaruhaa indhahooguna khaashicatun way talligan yihiin, oo waa argagax ayaa kasoo hadhay iyo talligaad. indhuhu way talligmeen, quluubtooduna way argagaxsan yihiin. waajifa, khaa'ifa, rajifa, sida cabdillahi bin cabaas yidhi, way cabsanayaan oo way argagaxsanayaan. marka wadnuhu gariiro uu aada u garaacmo marka uu qofku cabsadoo kale, saasoo kale ayaa ku dhacaysa quluubtooda iyo wadnahooda. yaquuluuna waxay ku dhawaaqayaan maalintaas a innaa lamarduuduuna ma waxaa dibna loogu soo celinayaa filxaafira noloshii horeo kale, noloshii adduunka oo kale miyaa dibna loogu celinayaa. a idaa kunnaa cidaaman annagoo noqonay lafo nakhira baaliyoobay, lafo baaliyoobay oo gaboobay oo baaba-ay, miyaa noloshii horeo kale, noloshii adduunka oo kale miyaa dibna loogu soo celinaya oo ruuxdii dibna loogu soo celinaya. macnaha waxay ka tahay dheerdheer iyo kibir ayay ka tahay iyo isla weyni iyo yasitaan iyo sayaan in dib nafta la iskugu soo celin doono oo bacsi jiro oo laysa soo saari doono. qaaluu waxay leeyihiin gaaladu tilka idan haddiiba dib naftana loogu soo celiyo karatun waa noqosho khaasiratun aanu ku khasaarnay oo waana la cadaabayaabade, waana la cadaabi doonaa oo cadaab baa noo qoran, maxaaba nafta dibna loogu soo celinaya, waabaanu khasaarayna markaas. ilahi wuxu uhi subxaana wa tacaala fa inamaa hiya soo celitaanka laydi soo celinaya ee nafta dib laydi ku soo celin doonaa zajratun waa dhawaaq waaxidatun qura, waa dhawaaq qura oo malagu uu afuufi doono suurta. ayuunbaad hal mar dadku naftu kusoo noqon doontaa oo jirhkii iyo ruuxdii labaduba ay soo noolaan doonaan. wax ilaahay ku culus maaha. hiya zajratun waaxida waa dhawaaq qura ayaa ilaahay ka xigta subxaana wa tacaala. uu amar ku siiyo malaga inuu afuufo suurta fa idaa hum bisaahira, kabacdina waxaa la arkaya dadkii oo tuban, bannaan cad tuban, bisaahira biardin baydaa
dhul cad oo waasic ballaaran waa maxsharka la iskugu imanayo ee ilaahay subxaanahu watacaala lagu hor istaagayo halkaasay dadku iskugu imanayaan ama libax ha ku cuno ama bad ha ku liqdo ama dab ha ku gubo ama si caadi ah lagu aaso dhulka ha lagugu aaso ruuxda qof wal oo bani aadam oo dhintay ilaahay subxaanahu watacaala dib ugu soo celinaya kumana cusla ilaahay fa inamaa hiya zajratun waaxida waa dhawaaq qudhaaya ilaahay ka xiga subxaanahu watacaala oo uu malagiisa amro marka qolada gaaladu saasay ku dhawaaqi doonaan waxaana odhanayaan a innaa lamarduuduuna fi lxaafira ma noloshii horoo kale miyaa dibna loogu celinaya annagoo lafa baaliyoobay noqonay aidaa kunaa cidaama nakhira lafahayagii baaliyoobeen waxay u haystaan inay ilaahay ku adagta haddii lafahayagii baaliyoobeen oo jirkayagii baaba-ay miyaa noloshii hore adduunka oo kale ruuxdii dibna loogu celinaya wax adag bay la tahay haddiina la soo celiyo bay ku leeyihin oo noloshiiba dibna loogu celiyo karatun khaasira waa noqosho lagu khasaarayo taasi oonu ku khasaarayno macnaha laba tafsiir bay noqon kartaa maxaa faa'iide ku jirta weeye macnaha haddii dibna loo celiyo waa khasaaro kale noloshii oo kale dibna loogu celiyo iyo inay leeyihiin haddii noloshii dibna loogu celiyo aakhiradii cadaab baa noo qoran oo waanu khasaaraynaayo haddiina lasoo nooleeyo dee cadaab baa naga horeeya waanu khasaarnay ilaahay wuxuu fa inamaa hiya zajratun waaxida hadday ku culustay isleeyihin ilaahay way ku culus tahay arrintaas in dadka dib nafta loogu soo celiyo ilaahay wuxuu zajratun waaxida waa dhawaaq qudha nafkha waaxida fa idaa hum bisa